bandhiga heer caalami oo lagu soo bandhigay shaybaarada casriga ah oo loo adeegsado biyaha maareynta qashinka sahminta kheyraadka iyo horumarinta deegaanka ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Johannesburg ee dalkaasi Koonfur Afrika. warkan waxaa magaaladaasi nooga soo diray Mahad Maxamed Sheekh. bandhiga caalamiga ah ee IFAD Africa 2025 oo socday muddo 3 maalmood ah laguna soo gabagabeeyay magaalada Johannesburg ayaa diiradda lagu saaray shaybaarada casriga ah ee la xiriira biyaha deegaanka maareynta qashinka tamarta nadiifka ah sahminta kheyraadka iyo dib u warshadeynta. saad u jeedado ninka kaliya Soomaaliya hadda ka socdaan ahay oo waxaan igu casuumay halkan muxuu ahaa dawladda Jarmalka qayb ka mid ah oo iyadu wax ka qaban qaabis shirkan ayay igu casuuntay aniga inima dad kale iyagana cilmi baariyaal ah oo ka kala socdo qaybaha kale Afrika ayaa nagu wada casuumay halkan waxaan ka jeedinay presentation ama warqad baan ka jeedinay aan uga hadlaynay wadankeena nin walbaba. Dr. Xasan Xuseen oo ah qabiir Soomaaliyeed oo muddo ka badan 10 sano ka soo shaqeynayay shirkadda Aramco kana tirsan khubarada ka qayb galay bandhigan ayaa warbaahinta la wadaagay warbixin guud oo ku saabsan IFAD Africa 2025. bandhigu wuxuu aad muhiim ugu yahay biyaha Afrika sidee loo soo saaraa sidee loo nadiifiyaa sidee loo horumariyaa waxa kaloo jirto qaybtan hadda anaga aan taaganahay oo ah analytica wax kasta oo lab ku saabsan ha noqdo labka qaybta mining ama macdan soo saarista ha noqdo lababka loo isticmaalo caafimaadka lababka loo isticmaalo biyaha lababka loo isticmaalo waxyaalo kale wixii qalab oo ku saabsan marka waa bandhig lagu soo bandhigayo qalabyada kala duwan oo maanta cusub technology la socda oo adduunyada daafeeda laga soo saaray ha u badnaadaan China iyo Mareykanka iyo Jarmalka iyo u badnaadaan laakiin wadamo kale oo badan baa iyagana jooga. Dr. Xasan Xuseen ayaa ku dhiirigeliyay dawladda Soomaaliya jaamacadaha iyo ganacsatada maxalliga ah inay la jaan qaadaan horumarka sahminta kheyraadka nadiifinta biyaha ilaalinta deegaanka iyo ka faa'iideysiga tiknoolajiyada shaybaarada casriga ah si dalka uga faa'iideysto kheyraadkiisa dabiiciga ah si waarta oo mas'uuliyad leh. Soomaaliya waa ka faa'iideysan kartaa qalabka noocan kale inay ha noqdaan jaamacadaha ha noqdaan wasaaradaha hay'adaha kale inay iibsadaan oo ay maaragtay wadankii la geeyo oo maanta maaragtay si looga hortago waxyaalaha maanta inay haysto oo kale sababtoo wadankii maanta male research center meel cilmi baaris xarun cilmi baaris lagu baaro ma haysano waxaan u baahanahay marka qalabyada noocan oo kala duwan qaybaha kala duwan ha noqdo deegaanka environmentiga biyaha ha noqoto laababkii iyo science-kii intiisa kale in maanta loo sameeyo xarun cilmi baariseed waa lagama maarmaan jaamacaduna ayagana ay samaystaan meelo maaragtay wax lagu baaro cilmi baaris ah marka aad buu wadanku u anfacayaa arrimaha bandhiga noocan oo kale ah. IFAD Africa 2025 ayaa fursad muhiim ah u noqotay xoojinta iskaashiga dawladaha iyo aqoon-yahanada inay si wada jir ah uga shaqeeyaan mustaqbal waara oo ku salaysan tiknoolajiyo horumarsan iyo ilaalinta kheyraadka dabiiciga ah ee Afrika. Mahad Maxamed Sheekh, Universal TV, Johannesburg, Koonfur Afrika.